madaxweynaha dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo wafdi hogaaminaya ayaa maanta soo gaaray magaalada Nairobi caasimadda waddankan Kenya. wafdiga madaxweyne Shariif ayaa waxaa kamid ah qaar kamid ah golaha wasiirada xukuumadda ku-meel gaarka ee Soomaaliya oo kamid yihiin wasiirada wasaaradaha gaashaandhigga, arrimaha gudaha iyo ganacsiga. ujeedada safarka madaxweynaha Soomaaliya ayaa ahayd ka qaybgalka shir saddex geesood ah oo uu la yeelanayay madaxweynayaasha Kenya Mwai Kibaki iyo Uganda Yoweri Museveni. shir saacado kooban qaatay oo yeesheen saddexda madaxweyne ayaa waxaa ugu dambeyn laga soo saaray 7 qodob oo ah waxyaabihii ay isku afgarteen madaxda, kaas oo saxaafadda ajnabiga uu akhriyay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Moses Wetangula. Xuseen Carab Ciise waa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo la hadlay shirka kadib qaar kamid ah saxaafadda Soomaalida ayaa si kooban u sharaxay waxyaabihii looga wada hadlay shirka ay yeesheen saddexda madaxweyne. كسينا مكانسا ورح كسينا في كسر بحي شركة ما أنت كده عي دحمري مدحويننا الصومالية شريف شيخ أحمد يو وزير مدحوينها كينيا كيباكي يو مدحوينها يوغندا يوري موسيفيني كنتي وقوها شر أتكينا يوم إن كومينيكي هراء صباحي ستيت من أكتوبر يكي كحجي لو خبطي هذا سببه إيجاد كشرتي يكي وقدم بي وفدي عبد الولي رئيس الوزراء الصومالية وفدي هو جاميني هنتي لو أتكيني ولا الشقيسية يو هنتي إن لسكا كينيا يو الصومالية إسكت هاجران لدجالنا كالشباب مركمان هو هذا المد مدحبنياشو أي كود هذليان وحي مقدي كشرنا ماشى لقى ساري سؤال بدل بالنسبة بيدي ثم ومهم سنة واحد هذا هنتي إن لدجالنا كالشباب مد لقي هاي ريجن كورن وخطر كوي هاي إن استراتيجي مركا لقول دجالنا لها إن مسك الصوص صاروا وواحد يسكو أجي هاللغة هالقرا عيدا هالقرا مركا تاول يسكو فهمي إن الليرك وقاته إن إذا ما حوق درك الصومالية كرنتي يكو تاجريان أو إنا لشقينيان ولا له كينيا تانا ولا سكور راعي مركا كرنتي يو إن international community كرنتي لا واحد له سي إن لو قال واحد يعني عاويان وحدي معاونا كيني كران حاجة humanitarian كي حاجة إن operation كان بس support كريان. safarku madaxweyne Shariif ku yimid wadankan Kenya ayaa kiisii ugu horeeyay tan iyo markii ciidanka Kenya gudaha u galeen wadanka Soomaaliya 16 bishii tagtay October, taasoo waji cusub u yeeshay siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqa Geeska Afrika. Ibrahim Gedo Cawaale, S24 TV, Nairobi.